Excellency, ladies and gentlemen, during this occasion, allow me also to launch the Commission on Administrative Justice Public Inquiry Report that is entitled An Inquiry Report on the Problems Kenyan Citizens Encounter when Obtaining Legal Identity Documents in Border Counties. And in this case, we took Wajir County as a case study. These commissioners, Commissioner Lucy and Commissioner Sati, went to Wajir County and spent days talking to the citizens to be able to understand the kind of challenges that our people encounter. When a child is born, if they don't have a birth certificate, then they cannot progressively get the identity card. And we know that under the new system, a child must have a birth certificate to be able even to register for the exams. So we felt it was important for us to look up our citizens who are in the northeastern counties, get to understand their problems from the source, and from there, then we shall be able to advise government and recommend what must be done to support our northeastern Kenyans. The commission was there from the 19th to 23rd of February 2024. They therefore came up with a report which we are going to launch, and they understood how complicated it is for a citizen in northeastern to get just an identity card, even before we start talking about passports. The findings of this report underscore the urgent need for reforms and concerted efforts for us to be able to address their issues, ensuring that all citizens have equitable access to their rights and services. After all, legal identity is crucial for access to services and human rights, notwithstanding that it is a key component of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, and specifically SDG 16. We are, of course, aware of the fact that the government has moved to ensure that some of the stumbling blocks have been removed, but we've made our recommendations in the course of collecting views from citizens. We therefore call upon the relevant authorities to implement the recommendations, and I need not go through them because our Vice Chair enumerated the recommendations that the Commission has come up with. So we are asking government to be able to ensure that they implement the recommendations, starting with the Registrar of Civil Registration Services, to ensure that the citizens are recognized within our northeastern counties. We are also asking them to decentralize their services. This constitution calls upon public service to be decentralized to the lowest administrative unit. We need the registration office to get a space within the Wajir County, within the northeastern counties, so that the people are able to register and get their identification as easily as it can be. We are also asking for their presence within the Huduma centers. We know that there are 47 Huduma centers across the country, so Huduma centers are one-stop shop. So we should have registration offices within the Huduma centers if by the time the offices come, so that these people are able to get their justice. We appreciate what the President has done in abolishing vetting, but we are asking the administrative units to do more and ensure our recommendations are met. Ladies and gentlemen, as we, the Commission, take pride in our collective achievements and remain committed to the noble cause of enhancing administrative justice and access to information for all citizens in our next phase. As we play our parts, we believe that mnyonge atapata haki. As the Bible says in Proverbs chapter 31, 8-9, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and the needy. And I can tell you for sure, that is what this commission is about.
to defend the mnyonge in society. And with that, my dear brothers and sisters and friends of the Commission who are present today, I declare the report, this report, which has a crown, Republic of Kenya, and it has the Commission on Administrative Justice, Office of the Ombudsman. It is an inquiry report on the problems Kenyan citizens encounter when obtaining legal identity documents in border counties. It is a case study of Wajir County done from the 19th to the 20th of February 2024, and there are photos, so that you don't just think that you didn't get to Wajir County. There are photographic documents, photos that were taken in Wajir of the commissioners, of the members of the community who gave us their views and recommendations, and we were able as a commission to come up with these reports. I now, by the powers vested upon me as the chairperson of the Commission on Administrative Justice, declare this report officially launched. Thank you very much. As the chairperson of the Commission on Administrative Justice, declare this report officially launched. Thank you very much. Ladies and gentlemen, during this occasion, allow me also to launch the Commission on Administrative Justice Public Inquiry Report that is entitled An Inquiry Report on the Problems Kenyan Citizens Encounter when Obtaining Legal Identity Documents in Border Counties. And in this case, we took Wajir County. Omar Hassan Mohamed, Wajir aan ka imaaday. Waxaan represent gareynayaa Paranet. Sababtaan intuu imaadnina waxay ahayd Ombudsman oo nimankan oo hadda ka hor Wajir nooga imaadeen oo u cabanay arrimaha ayna weydiin. Arrimihii ayna weydiin waxa kamid ahay waraaqyaha dhalashada, ID-ga, passport-ki waraaqyaha dhimashada kuwana kamid ahay. Wayna dhageysteen oo si fiican ay noo dhageysteen. Way markaa waa soo noqdeen ilaa iyo Nairobi ay la aadeen. Maantana Ilaahay waxaas xugmay inay haddana inta nooga yeeraan oo meesha aan imaadna. Wajir kilix ma aha laakiin North Eastern dhan waayo annaga dadka oo sharci darrada dhibka faraha badan asay waa North Eastern dhan wax Wajir kilix ma aha iyo qaar haddana Eastern meelaha xuduudka meelaha xuduudiyaha ay ku wada yaalaan kulli. Markaan maanta markii warkooda aan dhageysanay arrimihii oon xaq ugu sheeganay waxayna tuseen in isbedel weyn badan laga qabtay oo isbedel weyn badan aska muuqdo waayo idinka shaahid waxaad ka tihiin in la bixiyay vetin meesha laga bixiyay arrimihii kalena kulli waa soo wada daba socdaan maantana xafiis ay ka fureen meesha Meero markaan aniga hadii aan dadkii North Eastern aan ahay oo North Eastern aan ka imaaday aad iyo aad ugu faraxsanahay ayagana waxaan ku buurinaynaa af hadalkooda war la sheegay inay noqonin oo wixii cabanay ay ka daba galaan oo dhibkayna ay sidii mar u arkeen isi ka badan ay u sii arkaan kuwaahay waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan yihiin magacayga maxaa la dhahaa Ahmed Aadan program officer Paranet ayaan ahay waa hay'ad ka shaqeysa Wajir hay'adaas dadka inta u badan waxay ku caawisaa dadka warqadaha dhalashada iyo kibaandaha iyo passportka ku dhibaataysan ayaan caawinaa bishii labaad oo hadda sanadkan aan ku jirnaa xafiis ombudsman la dhahayo Wajir noo imaadeen markay noo imaadeen caqabaha aan kala kulannaa warqadaha dhalashada iyo access to justice-ka iyo waxyaalahaas ay wareysteen marka muddo 4 bilood 5 bilood kadib maanta meeshan magaalada Meero aan isku nimaanay sababta aan isku nimaanana maxaa waaye in warbaahintii
ay soo saaraan wixii markay ay qaadeen baaritaankii iyo waxyaalihii looga qaban kara maanta meeshan iskugu nimaan waxaan warbixinta in la soo saara waxyaalaha dhibaatada dadka warqada dhalashada ay ku qabaan reer Wajeer inta u badan waxa waaye xafiis yarida Wajeer oo dhanba registration office 3 xafiis bas ku yaalaan mid Hawaasweyne iyo mid Wajeer South iyo mid Wajeer East iyo mid ku yaala Griftu marka xafiisadaha dadka ku yar dadka warqada dhalashada markay apply gareynayeen waa inay aadaan xafiiska ee warqadaha geystaan marka maamooyinkeena Turki iyo baadiye u badan inta u badan markay magaalada imaadaan qaarkood qarash badan ka baxa transport badan ka baxa xafiisiya ku yar marka waxyaalahaas maanta aan ka hadlaynay warbaahinta soo saartay inay waxyaalaha run ay yihiin in dadka dhibaato aad u fara badan ay ku qabaan marka waxyaalaha kalena waa corruption-ka lacagtan faraha badan oo qofka oo bixinaya delays-ka qofka ID-ga markuu apply gareysta ama birth certificate-ka markuu apply gareysta iska daahayso muddo fara badan iska qaadanay mar sanad iska maqnaani ama 5 bilood ama 6 bilood iska qaadanay waxyaalaha kale oo maanta meesha iska hadalna maxaa waaye dawladda hadda mashruuc cusub oo maisha number la dhahay ay keenaysaa oo ID-ga hore la bedelayo ID online laga dhigayo marka ID-gaasna waa ID 10 sano kadib expire aaday dadka inta badan reer Wajeer way warbaahin fiican iyo public participation fiican loogu soo belin marka dadka inta badan kama warqabaan mid kalena maxaa waaye birth certificate-ka application-ka ilmaha markay istaalka ay ku dhashaan application-ka waa la bedelay maxaa laga dhigay in online lagu soo biyo marka waalidiinta inta badan iyo maamooyinkana oo ma ogo markay xafiiska ay tagaan la leeyahay in online aad soo bisiin dadkana dad akhrista ma inta badan maamooyinka marka waa inay sayba aadaan qarash dheeraad ay bixiyaan marka waxyaalahaas warbaahinta maanta ka hadalna meeshan isku nimaanay